nabadgelyo korkiina ha ahaato idil ahaantiinba waa barnaamijkeennii codka warsame iyo wacdaraha nolosha. barnaamijkeenna waxaynu ku soo qaadanaynaa sheeko caanbaxday oo laga yaabo soomaalida badankeedu in ayna maqal, taas oo ku saabsan dadqalkii Whitechapel, kaasoo ilaa maanta lagu raad joogo. haddaba muxuu ahaa dadqalkani? waa su-aal ilaa maanta taagan, jawaabteeduna qarniyo badh qaadatay. hadiyo gooraale kolka dembi nooca uu doono ha ahaadee meel ka dhaco, waxaa la yaqaan in dembigaa cid yeelato oo lagu sunto loona raaco, xitaa haddii aan lasoo qaban dembiilahaasi ha ahaado mid dad dilay ama mid kubsi sameeyey ama xitaa mid wax dhacay ama si uun dembi kale u galay. sidaas oo ay tahay, haddaba haddii aynu wax yar ka taabanno degmada Whitechapel ee magaceeda lagu lamaanaysiiyey dadqalkan iyo nolosheedu sida ay beriga ahayd. waxay ahayd meel dad badan oo danyar ahi ku dhaqnaayeen, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen soogaleetii u badnaa yuhuud iyo ruush. dhanka kale waxaa degmada ku badnaa dilalka iyo falalka budhcadnimo iyo xitaa kufsiga, waxaana dhici jirtay in marar badan falal foolxumi ka dhacaan, taasoon dadka reer London dan iyo heelatoonna ka geli jirin sheekooyinka meeshaas laga soo sheego ee xitaa warbaahintu markasta qori jirtay. iyadoo arrinku sidaa yahay ayaa waxaa mar keliya dhacday arrin amakaagii yaab leh oo alxidhaala aan la furi karin noqday markay taariikhdu ahayd dabayaaqadii 1888kii, taasoo ka dhacday degmada dalka Ingiriiska ku taal ee Whitechapel, taasoo uu sameeyey qof dilaa dadqal xariifa ahaa, halisna badnaa oon ilaa iminka haybtiisa la garanayn, kaasoo dadka uu laayo si xun oo xil leh oo bahalnimo ah jidhkooda u jarjari jiray, taasoo argagax iyo cabsi ku abuurtay dadka Ingiriiska. dhanka kalena waxay sheekadan qofka dilaaga ahi madaxooda mijo u rogtay dowladda Ingiriiska iyo laamaheeda ammaanka, gaar ahaan xarunta dambi baadhista booliska London ee Scotland Yard loo yaqaan, kuwaas oo gebi ahaanba ku guuldaraystay soo qabashada qofkan dadqalka ah, xitaa ugu yaraan in xog laga helo cidda uu yahay iyo ujeeddada ka dambaysa dhigyacabnimadiisa. dilaagan dadqalka ahi waxa uu bartilmaamaysan jiray si gaar ah dumarka jidhkooda ka ganacsada, kuwaasoo ku noolaa xaafadaha isku raranta ee magaalada London, gaar ahaan degmada Whitechapel. waxauna kolka uu dilo ee dhuunta ka mudo jarjari jiray jidhkooda, gaar ahaan xubnaha muhiimkaa sida macdanta iyo keliyaha, isagoo ku samayn jiray qalin xirfadaysan, waana sababta loogu qaatay inuu ahaa qof dhakhtar ah xirfad ahaan. qofkan magaca kale ee loo yaqaan ee shacbaxay isna waxa uu ahaa Jack the Ripper. haddana waxaa laga yaabaa inaad is weydiiso xagga magacaa laga keenay haddii aan la garanayn haybtiisa iyo dhab ahaan waxa uu ahaa dadqalkani. magacan waxaa laga keenay warqad uu qoray qof sheegtay inuu yahay dilaagan la garan waayay cidda uu yahay, warqadaas oo lagu baahiyey warbaahinta dalka Ingiriiska iyo ta dunidaba. sidaas oo ay tahay, haddana waxaa la rumaysan yahay in warqadda uu magacan Jack the Ripper ku qornaa ay tahay warqad been abuur ah oo la alifay, taas oo dad badan ku doodaa in qof wariye ahi uu been abuuray warqadda, isagoo ka dhigaya inuu sir gaara helay, badinayana xiisaha iyo danaynta ay dadku rabaan inay wax kaga ogaadaan arrintan loo maaro waayey iyo sheekada qofkan dadqalka ah. dhanka kalena sumcadda wargeyskiisu kor u kacdo soo akhristayaal badan u helo. waxaa kaloo iyana dhacday in marar kala duwan ay dad kala jaad ahi waraaqa soo qoreen iyaga oo sheeganaya ninkan dilaaga ah, taas oo aan la garanayn sababteeda. waraaqahana waxaa ugu caansan tan la magac baxday warqaddii ka timi cadaabta. warqadan waxaa lagu soo hagaajiyey George oo ka mid ahaa waxgaradka deegaanka Whitechapel, waxaanu guddoomiye u ahaa guddi ay samaysteen qorweynta deegaanku, lana shaqayn jirtay booliiska xilliga dilalkani dhacayeen. waxayna ku jirtay waa warqadee bushqad ay ku wehelisay jeex kali binaadan ahi, waxaana loo qaatay in kelidaasi tahay dadka badan ee u qashay dadqalkan mid ka mid ah kelidiisii, sidoo isaguba uu ku sheegay warqadda. waxaanu qofka dadqalka ay sheegay inuu kelida dubay oo cunay, aadna ay u macaanayd. warqadaasoo kolkii dambe sheekooyin badan laga qoray, filmo doorana laga sameeyey. ugu dambeyntii 10 sane ee u dambeeyey, sheekada qofkan waxaa ka soo baxay arrimo badan oo isdiidan. dadka lagu eedeeyeyna waxay gaadhayaan boqolaal. dadka waxaa ugu caansan ninka boolishka ee la yidhaahdo Walter. ugu dambeyntii, dadqalkii Whitechapel ama dilaag Jack the Ripper oo qofka ugu caansan gacankuliglayaasha dunida, magaciisuna meel walba ka dhacay, baadhistiisuna dheeraatay oo ilaa hadda socoto, taasoo ilaa hadda lagu daraasadeeyo xarumaha dambi baadhista iyo goobaha cilmiga lagu barto waa dambi baadhista. waxaana jira mowduuc dhan oo loogu magac daray oo la yidhaahdo embryology. mahadsanidin dhammaantiin. fadlan haddii aanad hore noola joogin, Xawwa TV subscribe saar, lana soco taxanayaasha dambe ee barnaamijka.